السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawada wacan oo wanaagsan waqti kasto ay ku tahay Allah inaga aqbala acmaasha suuban. Waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa qaybtii afraad ee buugga Zaad iyo barnaamijkeennii Sahayda Ramadaanta. waxaan ku guda jirnay ka sheekaynta hodankii jannada. qaybtanna waxaan ku soo qaadanaynaa saxaabiga shanaad iyo lixaad, Az-Zubayr bin Cawaam. waxaa dhalay nabiga eedadii, waxaana uu qabay Asma bint Abi Bakar. waxa uu hijrooday labadii hijro ee Xabasho iyo Madiinaba. dhammaan duulaanadii nabigu uu qaaday uu kala qayb galay. dagaalkii Badar waxa uu hogaaminayay garabka midig ee ciidanka, waxaana uu siday mid ka mid ah calamadii muslimiinta. markii Masar la furanayay ayaa amiirkii muuminiinta ee Cumar bin Khadaab ciidan uu u dhiibay si uu u xoojiyo Camar bin Caas, waxaana uu kamid ahaa lixdii saxaabi ee uu Cumar bin Khadaab uu u magacaabay si ay uga tashadaan qofka khaliifka noqonaya isaga dabadii. waxa uu in badan ka ag dagaalamay nabiga calayhi salaatu wasalaam, jidhkiisana waxaa ku yaalay dhaawacyo fara badan, waxaana uu odhan jiray ma jiro dhaawaci soo gaadhay ilaa rasuulka agtiisa ayaan joogay oo aan difaacayay. waxa uu lahaa maal fara badan. markii uu dhintay waxa uu ka tegay hanti dhismayaal iyo dhul ah oo lagu qiyaasay 1,600,000 oo dirham. waxa uu magaalada Madiina ku lahaa 12 guri. waxa kale oo uu guryo ku lahaa Basra, Kuufa iyo Masar. haddii la isku daro wixii uu maal ka tegay waxaa lagu qiyaasay 576 milyan oo diinaar, oo haddii aynu ku qiyaasno lacagta hadda aynu naqaano waxa ay noqonaysaa 980 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waa lacag ku dhow 1 bilyan oo dollar. saxaabiga lixaad waa Sacad bin Abi Waqaas. waxa uu ahaa nabiga abtigii calayhi salaatu wasalaam. waxa uu ka mid ahaa saxaabadii ugu soo hor islaantay. dhammaan duulaanadii uu nabigu qaaday waa uu ka qayb galay. waxa uu ahaa dadkii ugu yaqaanay ganida leebka jasiiradda carabta oo dhan. waxaa la soo wariyaa maalintii dagaalkii Uxud inuu ganay 1000 leeb. nabiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku lahaa gan oo tuur leebka hooyaday iyo aabbahay lagugu furay. amiirkii muuminiinta ee Cumar bin Khadaab ayaa u dhiibay ciidan si uu ula dagaalamo Faris. waxa uu ku guuleystay dagaalkii waxa uu furtay magaalooyinkii Kisra ka talinayay ee Ciraaq ku yaalay. waxa uu ahaa geesi ay muslimiintu lahaayeen. Sacad bin Abi Waqaas waxa uu lahaa hanti fara badan. waxa uu ganacsigiisu ahaa samaynta leebabka iyo warmaha. waxa uu qasri ku lahaa meel lagu magacaabo Caqiiq oo Madiina u jirta 10 mayl. markii uu dhintay waxa uu ka tegay 2,500,000 oo dirham. waxa uu nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey inuu sadaqaysto maalkiisa 3 meelood oo 2 meelood maadaama uu dhalay hal gabadh oo kaliya. nabiguna sallallahu calayhi wasallam waa uu ka diiday oo waxa uu ku yidhi 3 meelood oo 1 meel oo kaliya sadaqayso. waxaana uu ku yidhi inaad ka tagto carruurtaada iyaga oo hodan ah ayaa ka khayr badan inaad ka tagto iyaga oo caydh ah oo dadka wax weydiisanaya. saxaabadii jannada loogu bishaareeyey 10 waa ay ka badnaayeen, balse waxaa caan baxay 10kan saxaabiyeen horena u soo sheegnay, waayo iyaga hal xadiis ayaa jamciyey. qoraagu waxa uu leeyahay anigu waxaan si gaara u xusay 60 saxaabi oo ah kuwii ugu hodansanaa saxaabada, waxaanan u bixiyey hodankii jannada. waxay ahaayeen hodankii jannada. adduunyadana waxay ku hantiyeen qalbi zaahid ah iyo ruux suuban. way badhaadheen. intii hareerahooga joogtayna way la barwaaqowday. allah ayaa ka raali noqday. markaas ayuu jannooyinkiisa u ballan qaaday. qaybtani waxay noo soo gebagabaysay ka sheekaynta hodankii jannada. qaybaha dambe waxaynu ku soo qaadan doonaa mowduucyo kale oo muhiim ah oo uu buuggani qorayo. waad mahadsantahay haddaad halkani la soo gaadhay. la soco qaybaha dambe, siina sheer garee barnaamijka kanaalkeenana ku soo biir. salaamu calaykum.